السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وسبتي كوبي طبعا كبيش كوباد جانوري سنة كلا بدو كون يشان يلا باتنك مقال كم حربا إن ندخل وذاقو شرعي عن أمونك سنين سوغلوتي شرع الدرجة أمريكان ككونول oo aqalka Congress-ka labaduba waa Senate-ka iyo aqalka House of Representative-ka ay meel mariyeen waxaana uu noqday sharcigii ugu horeeyay ee Congress-ka cusub ee 119aad uu meel mariyay haddaba sharcigaasi muxuu yahay waan idinla wadaagaya ninka Trump uu magacaabay arrimaha xadka iyo masaafurinta oo shalay wareysi siiyay telefishinka NBC muxuu ka yiri dadka soo galootiga goobahooda shaqada miyaa loogu tagayaa oo laga soo qabanayaa sidoo kalena kaymaha la yiraahdo Darien Gap ee u dhaxeeya Colombia iyo Panama muxuu ka yiri iyo sidoo kaleba arrimo kale oo dadka Mareykanka ayaa noo soo sheegi kara dadka sharci darada ee dhibaatada geysta telefoon ayaan sameyn doonaa ayuu leeyahay arrimahaas ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo bal soo dhawaada aan ku bilaabay sharci la yiraahdo Lincoln Riley Act ayaa Congress-ka labada aqalba ay meel mariyeen toddobaadkan gabar magaceed ayaa loogu magac daray haddaba gabadhan horta maxay tahay bal marka hore sharciga inta aanan u galin aan gabadhan arrimaheeda idinla socodsiiyo gabadhan waxaa la yiraahdaa Lincoln Riley waxa ay ahayd ardayad dhiganaysa jaamacadda Georgia nin wadanka sharci darro ku soo galay oo wadanka Venezuela ka yimid ayaa 22kii bishii labaad ee sanadkii hore 2024 iyadoo xilliga subaxdii ardaydu way aalamiiteen iyadoo orodkeedii aalamiitada ku jirta ayuu meel uga soo baxay inuu kufsado ayuu rabay kadib qaylo ayay bilowday markaas kadibna waa uu dilay markii kaamirooyinkii dib loo raacay meeshii ku xirnaa ayaa la arkay ninkan isaga iyo walaalkii oo guri u dhow deganaa jaamacadda meel u dhow ayaa la soo qabtay waa la soo xiray ninkan marka maxkamad ayaa la saaray ugu dambeyntiina waxaa la xukumay 20kii bishii November ee 11aad ee hadda dhamaatay sanadkii hore ee 2024 waxaana lagu xukumay xabsi daa'in oo aan cafis lahayn ayaa lagu xukumay marka gabadhan Trump oo lalaha doorashada dadkii magaceeda uu sheegay ayuu ku jiray wuxuu dhahay dadka soo galootiga waa kuwan dadkeenii dhalinyarada ee soo baxaysay wax baranaysa ayay dilayaan oo lalaha doorashada ayaa qayb ka ahaa Trump markii uu ololeynay haddaba marka sharcigan oo xubnaha Republican ee ku jira aqalka wakiilada ay soo diyaariyeen gabadhii ayaa loogu magac daray marka gabadhaasi waxa la yiraahdaa sharcigan the Lincoln Riley Act ayaa la yiraahdaa 9kii bishan oo talaadii la soo dhaafay ahayd ayaa aqalka wakiilada ama House of Representative-ka ay meel mariyeen sharcigan loogu magac daray gabadhii Lincoln Riley Act waxa aqalka wakiilada ee House of Representative-ka ay meel mariyeen talaadii la soo dhaafay waxa uu codeysay 264 oo ogolaatay 48 dimuqraadiyiin ayaa ku raacay Republican-ka oo dadka ogolaaday ku jira 159 dimuqraadiyiinna waa ay diideen xubno kale oo ka aamusayna waa ay jiraan iyagana sidoo kale dhinaca Senate-ka markii la horgeeyay asagana 9kii January oo Khamiistii ahayd 84 ayaa u codeysay halka 9na ay diideen 9ka diiday dhamaantoodba waa dimuqraadiyiin marka sharcigan maadaama dhinaca Republican-ka uu ka soo bilowday dimuqraadiyiinta dad xubno badan oo ka tirsan Senate-ka iyo aqalka wakiiladaba waa ay diideen haddaba waa kan sharcigii marka labada aqalba ay meel marinayeen bal wax yar ila daawada sharcigan marka maxaa ku jira sharcigan maxaa dadka soo galootiga ah oo dhibaato ah uu u geysanaya sharcigan the Lincoln Riley Act marka hore waxa uu ogolaanaya in dowladda federaalka ah ay xirto dadka soo galootiga sharci darrada ah kuwaasi oo lagu helo inay dhac geysteen oo guryo ay u dhaceen ama ay waxadeen waxa sharcigan uu awood u siinayaa xeerlaaliyaha guud in uu dacweyn karo dowladda federaalka ah haddii ay helaan cadeymo muujinaya in gobolkooda dhibaato ay ka soo gaartay in dowladda federaalku ay ku guuldareysatay in ay hirgeliso sharciyada qaranka ma siyaasadaha qaranka ee dhinaca immigration-ka iyadoo sidoo kalena sharcigan sidoo kale waxyaabaha ku jira ay ka mid yihiin inuu u ogolaanayo gobolada inay dacweyn karaan wasaaradda amniga gudaha haddii ay helaan in dhibaato loo geystay dadka muwaadiniinta Mareykanka dhibaatadaasina ay u geysteen dad wadanka sharci darro ku soo galay oo dowladda federaalka ay u ogolaatay marka haddii lay goboladu ay helaan cadeyn muujinaysa in siyaasadii dowladdu ay federaalka aysan si rasmi ah u dhaqan gelin sidaas darteedna dhibaato ay uga timid dadka muwaadiniinta Mareykanka dad soo galootiya oo si sharci darro ah ku soo galay wadanka dowladdu ay u ogolaatay
wasaaradda amniga gudaha goboladu waa ay ku dacweyn karaan. Marka sharcigan sidaasi ayuu dhigayaa, iyadoo sharcigaasina labada aqalba ay meel mariyeen, waxaana uu noqday sharcigii ugu horreeyay oo Koongareeska 119aad ay meel mariyaan maadaama 3dii bisha la dhaariyay. dhinaca kale haddii aan u gudbo, ninka Trump uu u xil saaray arrimaha xadka iyo masaafurinta Tom Homan ayaa shalay waxa uu wareysi siiyey telefishinka NBC. ninkan Tom Homan arrimo fara badan ayaa wax laga weydiiyey, waxaa ka mid ahaa dadka goobahooda shaqada miya ugu tegaysaan dadka sharci darada ah oo aad ka soo qabanaysaan islamarkaana aad masaafurinaysaan. haa ayuu yidhi, goobaha shaqada ayaa loogu tegayaa oo laga soo qabanayaa, kadibna waa la masaafurinayaa. waxyaabaha kale uu sheegay waxaa ka mid ah inuu ballan qaaday inuu xirayo kaymaha Darien Gap la yidhaahdo, kuwaasi oo u dhexeeya Colombia iyo Panama, oo dadka Latin America iyo Africa iyo Asia ka imaanaya ay soo maraan. waa kaymaha halisa kuwaasi oo dadka qaarkood ay ku geeriyoodaan. waxaa lasoo marayaa dhul kaymo ah oo bahalo leh, buuro ayaa lasoo marayaa, webiyaal ayaa lasoo marayaa. marka waxa uu yidhi kaymahaasi gebi ahaanba waan xiri doonaa si aan u ilaalino ammaankeenna qaranka, maxaa yeelay dadka soo mara wadamadaasi idil markay soo maraan Maraykanka ayay u soo socdaan. isagoo waxaa la weydiiyey military Maraykana miyaa la geynayaa mise dowladda Panama ayaa kala shaqaynaysaan arrintaasi. waxau yidhi dowladda Panama ayaan ka kaashan doonaa sidii gebi ahaanba kaymahaasi loo xiri lahaa. sidoo kale waxa uu sheegay abka la yiraahdo CBP1 oo hadda dowladdan maamulka Biden uu u ogolaaday in dadka dhowr wadan ka imaanaya oo Latin America sida Venezuela, Haiti, Nicaragua iyo weliba Cuba in humanitarian bro loogu ogolaanayo abkaas intay kasoo apply gareeyaan ama eraborada ay imaan karaan ama xadka ay imaan karaan marka ay ballan qabsadaan, kadibna loo ogolaanayo inay wadanka soo galaan. waxau yidhi abkaas gebi ahaanba waan xiri doonaa. sidoo kale waxa uu sheegay in ay samayn doonaan teleefon shacabka Maraykanka ay kasoo wici karaan haddii ay arkaan qof wadanka sharci darro kusoo galay oo dembi geystay ama dembi geysanaya. haddii ay arkaan teleefon ay soo wici karaan ayaan ku dhawaaqi doonaa ayuu leeyahay. marka waxa uu yidhi haddii ay arkaan qof caruur laga ganacsanayo ama sidoo kalena dad si qasab ah loogu shaqaysanayo ama dad soo galootiya oo dil geysanaya, dhammaanba waxau yidhi waxaan shacabka Maraykanka u ogolaanaynaa iyaguna inay ka qayb qaataan islamarkaana ay nagu soo wargeliyaan teleefonkaasina ay naga soo wacaan ayaan samayn doonaa ayuu leeyahay. waxyaabaha kale uu sheegay waxaa ka mid ah waxaan samayn doonaa ayuu yidhi shir jaraa'id oo toddobaadla ah islamarkaana waxa aan ka warbixin doonaa halka masaafurinta ay marayso. marka toddobaad kasta shir jaraa'id ayaan qaban doonaa, intaasi qof ayaan masaafurinay, intaasi ayaa gacanta lagu soo dhigay, intaasi ayaa xiran, intaasi ayaa broseskooda gabagaba yar oo maalmaha soo socda la masaafurin doonaa. marka shirkaasi jaraa'id ayaan qaban doonaa oo sharaxaadaasi aan ku bixin doono halka masaafurinteena ay marayso. waxaan ognahay Trump hadda inuu xukunka la wareego waxaa ka harsan 9 maalmood oo kaliya, 20 January ayuu la wareegi doonaa. wararka qaar hadda waxay sheegayaan inay jiraan ilaa iyo 100 wareegto oo Trump maamulkiisa uu diyaariyey oo maalmaha u horeeya uu saxiixi doono oo arrimaha immigrationka ay kow ka yihiin. marka waan arki doonaa sidoo kale Trump marka xilka uu la wareego iyo tallaabooyinka uu qaadan doono. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.